waa subaxnimo khamiis ah 23 Abriil 2020 idaacadda subaxnimo anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi ayaa idin soo jeedinaya qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Koonfur Afrika oo kumanaan militarigeeda ah u adeegsanaysa dhaqangelinta bandowga Soomaaliya oo sheegtay in todobaadyada soo socda uu ayax mar kale ku degi karo qaybo kamid ah dalka maxaa soo celin kara roobkii hore u bilowday waxay fududeynayeen ayaxay joogay oo kali u socday in ukun uu dhalo sidoo kale roobabkan xoogooda iyo hadda u bilowdeen waxay eedan sii dadajinay marka ayaxay ukuntiisa dhulka ku jirtay inay soo baxdo oo ay soo dilaacdo labada isbuuc u horeeyay oo bisha May cabsida ugu badan ay jirtaa ayax inuu soo dilaaco muslimiinta Kenya oo yeeshay koox gaar ah oo dugta dadka u dhintay cudurka COVID-19 qaabkee ayay u shaqeynayaan waxaa jirto kafan gooni ah oo bacada ka suusan oo ay dawladdu hagaajisay oo imeedka lagu xirayo hadii mar la xirana aan la furi karin marka dawladdu waxay noo sheegtay dhakhtarku ama isbitaalku uu ku dhimanay imeedka marka hore in ay ka biyo raacin hayaan oo ay dhaqahayaan waxa marka uu imaanaya dhalinyaro dhowr ah oo dharkii xiran imeedkii bay la wareegayaan muslimiinta xaafad ku taal Minneapolisna waxa loo ogolaaday in masjidkooda aadaanka laga baahiyo COVID-19 awgi qodobo kale iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdifataax Ibraahim Cagayare mahadsanid Kawthar madaxa hay'adda Mareykanka dusha kala socota samaynta talaalka xanuunka coronavirus ayaa sheegay in talaadada xilkii laga qaaday maadaama uu ka soo horjeestay in laba dawo oo lagu dabiibo xanuunka malaariyada loo isticmaalo daweynta cudurka COVID-19 taas oo uu baritaarayay madaxweyne Donald Trump Dr. Rick Bright ayaa sheegay in isaga oo dhinaca la geliyo iyo waliba in siyaasadda laga hormariyo sayniska ay halis gelinayso nolosha dadka Ameerikaanka madaxweyne Trump ayaa hoos u dhigay khatarta mawjad labaad oo xaaladaha coronavirus oo la arko dabayaaqada sanadka Mr. Trump waxa uu sheegay in suuragal ay tahay in xanuunka corona ay isku soo beegmaan hergebka xilli roobaadka taasna ay dhibaato keento hase yeeshee xanuunkaasi COVID-19 uusan gabi ahaanba soo laaban doonin waxa uu ka soo horjeestay haddaba hadalkaasi hadal uu sheegay khabiirkiisa sare ee cudurrada faafa Anthony Fauci saraakiisha gobolka California waxa ay sheegayaan in dhimashadii ugu horeysay ee xanuunka COVID-19 ee wadanka Mareykanka ay horaantii bishii Febraayo ka dhacday gobolkaas taas oo aad uga horeysa muddadii markii ugu horeysay loo maleynayay sarkaalka caafimaadka u qaabilsan deegaanka Santa Clara ee gobolkaasi California ayaa sheegay in haweeney ay geeriyootay 6 Febraayo aysan ahayn qofka kaliya ee lagu khalday in hergab uu u dhintay maayirka magaalada Manaus ee wadanka Brazil ayaa sheegay in hanaanka caafimaadka uu dhow yahay in ay ka saaid calayso tirada xaaladaha coronavirus ee halkaas laga soo tabinayay inay soo gaarayaan Manaus ayaa waxa ka dhacay baa leeyahay ku dhawaad 3 jibaar celceliska dhimashada qaranka Brazil madaxweynaha Mexicana Andrés Manuel López Obrador ayaa waxa uu sheegayaa in uu bixin doono qarash lagula tacaalayo saameynta dhaqaalaha uu ku reebay xanuunkaasi coronavirus waxa uu sheegay in saraakiil sarsare oo isagu ku jiro ay jari doonaan mushaarkooda ugu dambeynna saynisyahano ku sugan wadanka Faransiiska ayaa waxa ay baarayaan in maadada nicotine-ka ee ku jirta tubaakada ay gacan ka geysan karto in dadka ay ka difaacdo xanuunka coronavirus xogta laga helayo isbitaal ku yaal magaalada Paris ayaa waxa ay muujinaysaa in dadka sigaarka caba ay tira ahaan yar tahay in isbitaalka loo dhigo COVID-19 warka caalamkana waa naga inta Kawthar Cabdifataax Cagayare aad buu mahadsan yahay markana u diyaar garoow qaybaha kale ee idaacadeena subax wanaagsan mar kale dhageystayaal aynu ku bilaabnay ee dalka Koonfur Afrika ayaa ku tala jirta in ka badan 70,000 oo askarteeda militariga ah ay u adeegsato dhaqangelinta bandowga lagu soo rogay guud ahaan dalkaasi laamaha ammaanka ee dalkaas ayaa wax badan ka qaban waayay dadka jebinaya bandowga oo wadankaas ka dhaqangalay ku dhawaad bil ka hor waxaana dhibaatada ugu badan ay kala kulmayaan xaafadaha isku raranka ah iyo goobaha khamriga lagu iibiyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa sheegtay in cudurka COVID-19 oo si ba'an ugu faafaya wadankeeda ay keentay baahida ah in la howlgeliyo ciidamada militariga
mahad geedi salaad waxa uu ka mid yahay soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika qadka telefoonka ee johannesburg ayuuna iigu waramay. walaal waxaa keenay wadanka muddo wuxuu ku jiray bandow oo 3 usbuuc 2 usbuuc baa dib lagaga daray. wadankan dadka intiisa badan waa dadka danyar oo qutiliyoonkooda maalintii soo dhaxsado. shaqadii maadaama la joojiyey dadku way baahdeen. dadkii marka dhibaato badan baa imaatay. dadkii madowga dhac bay bilaabeen. dukaamo la jabsado, baabuurka wadada laga leexsado, dukaamo la boobo. marka madaxweynaha hadlay tilaabo marka sharci baan qaadayna uu yiri 73,000 oo ciidan military baan soo sidaanayna uu yiri. waxaa midaasoo kale dheer dhaqaalo badan buu bixin rabaa oo ilaa 500 oo bilyan oo ran oo dadka danyarta lacagta ugu badan la siinayo oo ilaa bisha October soconayso 6 bilood hadda ka dambe. dad qaar ay leeyihiin ma bandowga inta sii socon doona. maanta khamiistuna ka hadli doona madaxweynaha inta lagu dari doono bandowga. marka ciidankaasi aad sheegtay ma la sheegay wax ay qaban doonaan? wadankan waa wadan dhib badan oo xagga maaragtay crime-ka dhaca marka hore asoo iska caadi ah dhibaato badan iska jirtay. mar haddii dadka shaqalaan yihiin ay bahdeen dhibaato badan bay dhigayaan. hadda dukaamo badan bay gobolka la yiraahdo Eastern Cape magaalada B dukaamo badan oo Soomaali dad ajaanib leeyihiin raashin bay dhaceen. baabuurtii bay dhagaxyo u dhigayaan taraagadi oo wadada ka leexsanayaan oo ay boobayaan. waxyaabo badan oo faldambiyeed bay geysanayaan ama dukaamaha habeenkii bay jabsanayaan. marka sidaa darteed maadaama shaqooyinkii inta badan la joojiyey oo maaragtay wadanka uu bandow ku jiro laga yaaba inay maaragtay dambi badan oo wadanka ka dhaco. ciidamada marka amniga ay sugayaan 73 militariga oo ku jirin booliska iyo askarta kale caadiga iyo askarta metropoliska loo yaqaan oo degmooyinka ka howlgalo. marka ciidamo badan ayaa howlgalayaan maadaama wadanka oo dhan uu xiran yahay. mahad waxaad ka mid tahay ganacsatada ee dalka koonfur afrika bal guud ahaan wax inooga sheeg sida uu idin saameeyey bandowga dalkaasi. wadanka bandow waa lagu soo rogay meel walba ganacsiga waa xiran yahay. soomaalida ama dadka ajaanibta waxyaabaha ay ka shaqaystaan waxaa kamid ganacsigan hadda sidiisaba bataatan waa xiran yahay. waxyaabaha furan waxaa kamid dukaamaha oo raashinka gadaan qutul daruuriga iyo kaalimaha shidaalka iyo sida farmashiyaasha. marka qeybaha soomaalida ay ka shaqaysta waxaa kamid baabuurta iyo transportationka iyada waa la xiray. dukaamaha dharka ayakana waa la xiray. waxa kaliya furan waa dukaamaha raashinka. dukaamaha raashinkana waxay ka furan yihiin meelaha kale oo isku raranka dadka madowga faqriga degan yihiin ee dhibaatooyinka inta badan ka dhacaan ayaka naftigooda sida hore uma shaqeeyaan subaxdii xilli dambe oo ilaa 2 saac 3 saac la furaa. galabtan waxaa la xiraa 5 galabnimo. dukaamaha intooda badan albaabahooda way xiran yihiin maadaama cabsi badan jirto oo maaragtay tuugadii iyo maaragtay dhici badan yahay. marka meelaha badan oo isku raranka oo maaragtay magaalada Johannesburg ka baxsan sida Soweto, Alexandria, Mamelodi iyo Soshanguve tuulooyinkaas ay tagaan ciidamada militariga inta badan madowga u badan yihiin baa la geeyaa maadaama aad looga baqay inay dhibaato badan sameeyaan. cudurkan si ba'an ayuu ugu faafayaa koonfur afrika. marka bandowga ka soko maxaa kale oo tallaabooyin ah ee qaaday dowladda dalkaasi? wallaahi dowladda aad bay u dadaalaysaa waayo hadda dadka oo cudurka ku dhacay la taqriiban 3,500 oo qof ayaa qaba. taqriiban 58 qof waa dhimatay ilaa 1,050 xoogaa oo kasoo kacday. meel walbana waxaa lagu dhejiyay calaamadaha dadka say maaragtay gacmaha u dhaqan lahayeen iyo digniinta iyo wixii la mid ah. marka dowladda TV-ga iyo idaacadaha ka hadlaysaa sida maaragtay dadka isku ilaalin lahayeen xanuuno halis waaye. midda kale waxaad ogaataa xanuunkan dadka nugul oo dhan buu daran yahay. wadankan sidiisaba dad badan oo xanuunka HIV-ga ama AIDS loo yaqaan ayaa jira. taqriiban ilaa 8 milyan oo qof ayuu hayaa. dadkaasna hadduu ku dhaco oo ma gegsan karaan oo maaragtay oo dadku laga yaabo inuu haleelo dilo. marka dowladda aad bay uga taxadiraysaa. midda kale waxaa hadda aan maanta arkaynay meelaha waxyaabaha laga iibsado. hadda meel baan aniga nima saaxiibana maanta qaxwo ka iibsanay. maqaaxi baan galnay. maqaaxida markaan tagnay buug baa yaala warqa iyo qalin. waad isdiiwaangelinaysaa magacaada iyo waxaad qoraysaa telefoonkaada iyo adresskaada meesha degan tahay. haddii lacalla qof maqaaxida ka shaqeeya xanuun ka soo baxo qof kastoo meesha shaha ka gatay ama imaaday oo laga helo magaciisa iyo maaragtay telefoonkiisa waa la wacayaa. waa la check up garanaya inuu xanuunka uu meesha ka qaaday kale. marka dabagal badan bay dowladda samaynaysaa xaggaas oo maaragtay aad bay u xakameynaysaa xanuunkan. mahad geedi salaad oo ah mid ka mid ah soomaalida degan ee dalka koonfur afrika oo ii warramayay ayuu kaasi ahaa. markana Soomaaliya ayaa sheegtay in 2 toddobaad ee ugu horeeya bisha May la saadaalinayo in uu kaco ayax waxyeelo ba'an u geysan kara dalagga iyo daaqa dalka. wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ayaa sheegtay inay ku howlan tahay sidii loo xakameyn lahaa faafidda ayaxaasi isla markaana ay wado sahmin ku aadan marxaladaha uu marayo. waa Dr. Cabdi Maxamed waa agaasimaha ee waaxda la dagaalanka cayayaanka iyo difaaca dhirta ee wasaaraddaasi. waxaana uu sidoo kale madax u yahay guddiga qaran ee la dagaalanka ayaxa ee Soomaaliya. qadka telefoonka ayuu ugu waramay Faarax Lamaane.
roobabkii hore u bilowday waxay fududaynayeen ayaxay joogay oo keli u socday in ukun uu dhalo. sidoo kale roobabkan xoogoodii hadda uu bilowdin waxay eedan sii dadejinaya marka ayaxay ukuntiisa dhulka ku jirta inay soo baxdo oo ay soo dilaacdo. labada usbuuc u horreeyay oo bisha May cabsida ugu badan ay jirtaa ayax inuu soo dilaaco maadaama roobabkii waddanka badidiisa bilowdan gaar ahaan gobollada ayax uu ku tarmo. marka haddii aad saadaalinaysaan labada usbuuc ee ugu horreysa ee bisha soo socota oo la og yahay xilliyadaas inay bilaaban doonto khatarta weyn, maxaa ka hortagahoo aad iminka qorshaynaysaan inaad samaysaan? ayax waxa ugu muhiimsan oo lagula dagaalo waa sahanka, in la sahmiyo ayaxa si loo ogaado marxalada uu soo marahaya. ukun muu soo marahaya, koronkoro muu soo marahaya, ayax weyn muu noq. marka annaga ka wasaarad ahaan anagoo kaashanayna hay-adda FAO waxaa jiro saxan oo sanadkii oo dhan soo socday. marka laga bilaabo bishii tagtay Maars ilaa iyo hadda bishaan aan ku jirno, galmudug oo kale saxankii labaad ay hadda waddaa, Puntland kii saddexaad ay hadda bilowday, Somaliland sidoo kale. marka ayax waa shay ugu muhiimsan lagula dagaalo, in warbixin in laga helo si loo ogaado habka aad kula dagaali lahayd. intaa waxaa usii dheer, hadda waxaan diyaarinay agabkii lagula dagaali lahaa. marka saxankan oo hadda aan wadno waxaa kasoo bixi doono maabkii iyo meelihii ayax uu joogay si u ogaano waqtiga uu dilaacayo. halkee ka wadaan sahanka yaase idinla wada? sahanka hadda Puntland iyo galmudug iyo Somaliland wuu ka socdaa. maamul goboleedana samaynayo ayagoo gacan ka helaya wasaaradda federaalka iyo hay-adda FAO. hadda aan kula hadlahayo maanta galmudug ayana saxankeeda wuu socdaa. Puntland 2 maalin ka hore saxankii labaad ay soo dhameysay bishaan gudaheed, kii saddexaad usbuucan ay biloobeen. marka saxanada ma istaagaan, waayo waxaa la rabaa inaan marna aan meesha aan ka bixin stageka ama marxaladda ayax uu soo maraya. ayaxa deegaanadaas oo dhan aad hadda ka baqaysaan in uu ka kaco, saamayn intee leeg ayuu geysan karaa ama dhibaato intee leeg ayuu geysan karaa baaxaddeeda? ayaxa meesha ugu fiican oo lagula dagaalayo waa eriyada hadda aan sheegnay oo meesha ashaga uu ku tarmaayo oo gobolada dhexe ilaa iyo Puntland iyo Somaliland. waxyeeleynaa marka daaqa oo deegaankaasi maadaama primary ama wax ugu horeeyo dadkaas ay dhaqdaan yihiin xoolaha. laakiin cabsida ugu badan waxay tahay koonfurta inuu usoo saameyn adag uu yeelan karaa. saa ogtiin Soomaaliya oo mar hore yani waxay ku jirtay xaalad yani sugnaanta cuntadeeda way iska liidatay oo sanadkan ma haddii laga reebo oo waxaa jiri jiray abaaro oo waddanka kusoo laalaabtay. marka cuntiyari inay imaato waxyaabaha ugu badan uu saameynayo. marka cuntiyarada keli ma ahan inuu beeraha keli uu saameeyo, mar haddii daaq uu saameeyo xoolihii haddana la-aanayo. marka labada daaq iyo dalaq labadba inuu saameeya cabsideeda jirta. Dr. Cabdi Maxamed, agaasimaha waaxda la dagaalanka cayayaanka iyo difaaca dhirta ee wasaaradda beeraha ee Soomaaliya ayuu ahaa. Faarax Lamaane ayuu u waramayay. halkani waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa hagaag qodobo kale ee inoo soo socdo, balse tan iyo markii ay bilaabatay in dadka u dhintaan cudurka COVID-19 ee safmarka ah ayaa qaar ka mid ah dalalka muslimiinta looga tirada badan yahay. waxaa ka taagnaa dood ku aadan sida loo aasayo shakhsiyaadka bulshooyinkaasi ka tirsan ee xanuunka u geeriyooda. Soomaalida ku nool qaar ka mid ah dalalka Yurub ayaa walaac xoogan ka muujiyay habka loo duugo dadkooda oo u dhinta cudurka, kuwaasoo ay sheegeen inaanan lagala tashan. balse dalkan Kenya waxaa jira koox dhalinyaro u badan oo loo tababaray asturidda meydadka muslimiinta ah ee u dhinta COVID-19. hawshooda iyo tababarka ay qaateen ayaa waxaan ka wareysanay Shariif Maxamed Shariif Cabdiwahaab oo ka mid ah kooxdaasi. Cabdinaasir Saxan Saxo ayuuna u waramay. markii xanuunkan aan aragnay inuu faafahayo dalkan Kenya, cabsi ay jirto in ay dad muslimiin ah xanuunka kan u geeriyoodaan, in ay su'aal la soo weydiisay wasaaradda caafimaadka oo ahayd sidee qofka muslimka u xallinaa arrimihiisa. waxaa la doonaya xanuunkii inuusan faafin ama qof kale oo nool uusan saameynin. kulamo waxaa jira isxixiga oo ilaa ma arkaysaa dhowr fadhiya oo ka kooban golaha sare ee muslimiinta dalka Kenya subkin, culamaa udiinka guud ahaan Kenya gaar ahaan Nairobi iyo Mombasa, iyo dhaqaatiir muslimiin ah. fadhi dheer kadib waxaa lasoo saaray in la helo dhalinyaro tababaran oo dharkii ilaalada xiran oo ma arkaysa u istaagta howlahaas haddii ayba dhacaan haddii la yidhaahdo. farsamo ahaan sideed howsha u qabataan dadka ku dhageysanaya haddii aad u sharaxdid? meydku haddii uu ku dhinto isbitaalka, wasaaradda caafimaadka nala soo xiriiraysa, kadib baa loo imaan hayaa. waxaa jirto kafan gooni ah oo bac adag ka sursan oo ay dawladdu hagaajisay oo meydka lagu xirahayo. haddii mar la xirana aan la furi karin. marka dawladdu waxay noo sheegtay dhakhtarku ama isbitaalka uu ku dhimanhayo meydka marka hore in ay ka biyo raacin hayaan oo ay dhaqahayaan. waxaa marka u imaan haya dhalinyaro dhowr ah oo dharkii xiran
meydkii bay la wareegahayaan gaari baa lagu qaadahaya gawaari waxaa jirtan loo diyaariyo oo u khaas ah hawshaas iyo naxas oo gaar ah oo lagu qaadahayo meydadka kadib eheladii iyaana raacaysa oo xaggii qabuuraha noo raacaysa oo ay ku tukanhayaan ilaa 15 baa loo ogol yahay inay raacaan labana marka hore meydka way xaqiijinhayaan inuu qofkooda yahay ilaa hadda alxamdulilah Nairobi 3 kiis baa marayna 3daba si nabad ah iyo hawshu u dhamaatay oo meel gooni ah iyo Langata looga calaameeyay marka dadkiinan guddiga ah ee hawsha qabanaya waxaad leedihiin gashi gaar ah oo idinka ilaalinaya in cudurka uusan idin soo tallaabin fiican waxay leeyihiin dhar yiraahdo PPI oo ilaalinaya qofka haddii ay tahay warxii gacmaha dharkii guud iyo koobihii iyo afkiisanka wixii uu ku xiranayay dharkan waxa ka horeeya inay tababaran yihiin waxaa jirta dhalinyaro badan oo volunteer ah oo arrinta loo tababaray habka meydka ula tacaamulahayaan habka loo joogahayo habka loo qaadahayo iyo hadhow si dharka iskaga bixin lahayeen ee dharkaasi wasaaradda caafimaadka ula wareegi lahayd maxaa ka mid ah caqabadaha aad kala kulantaan hawshan wacyigelinta oo aad u yar xaqan waxaan arkaynay dad qaarkood in ay dhahayaan anaga waxaan jeclaan lahayn meydka anaga inaan anaga asurano dhaqano si caadi ula tacaamulno inkastoo buxuustu qaarkood ilaa hadda caddeeyeen oo shalay u dambeysay in meydka uusan cudurka tallaabi karin haddana taxadar ahaan waxaa fiican in la wada shaqeeyo oo jahliga ma arkaysa ee lagu dhaqmayo meelo qaarkood la iska ilaaliyo oo lala soo xiriiro oo dhalinyaradan meydkii loo wareejiyo xanuunkan si wada jira si aan aga wada adkaano caqabaduhu xag dhaqaale waa iska jiraan oo ganacsatada ma arkaysa muslimiinta waxaa loogu baaqay in ay guddigan qaran ee muslimiinta ay taageeraan oo ay ka caawiyaan waxyaalaha ay u baahan karaan haddii ay tahay dharkaas iyo haddii ay tahay maamul in la suubiyo haddii ay tahay in warka meel walba la gaarsiiyo leanna waxa guddigan u taagan yahay waa national level county kumeka ma jiraan culaysyo xagga maskaxda maadaama dad xanuun u dhintay aada la macaamilaysaan alxamdulilah wax dhiba ilaa hadda ilaahay subxaana watacaala nalama kulansiinin kiisaska lala tacaamulay ilaa hadda waa 3 Nairobi ay hal Mombasa ah ka hortagii iyo diyaargarowgii horey loo diyaargarooway iyo trainingkii faraha badnaa ee dhalinyarada la siiyey iyo baraarugii lagu baraarugsanaa wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala nagu irsaaqay in jahwareer iyo xanuun iyo daal fara badan aan lala kulmin ilaa hadda dhalinyarada garoonka ku jirtay hawsha la tacaamulaysa si simple ah bay ula tacaamulaan si fudud oo naxdin ku jirin qalqal ku jirin yani qofka waa tababaran yahay hawsha uu qabanayo wuu og yahay waxaa dhacaysa markii trainingka la qabanayo meelo qaarkood sidii almasjid ulhuda iyo jamia mosque oo kale in qofka caadiga caafimaadka qaba meyd laga dhigay si dhalinyaradu ay u gartaan waxa ay qaban doonaan iyo shaqada ay qaban doonaan taasna waxay naga saaciday wax qalqala iyo wax wareer inaan la arkin ilaa hadda alxamdulilah kaasina waxa uu ahaa shariif maxamed shariif cabdiwahaab oo ka mid ah dhalinyarada loo tababaray qaabka loo aaso muslimiinta u dhinta cudurka covid-19 ee dalka Kenya Cabdinaasir Saxan Saxo ayuuna u waramayay markii ugu horeysay taariikhda magaalooyinka waaweyn ee wadanka Mareykanka ayaa waxaa masjid ku yaala xaafadda Cedar Riverside ee magaalada Minneapolis waxaa loo ogolaaday in inta ay socoto bisha Ramadaan in dibadda loo baahin karo aadaanka 5 salaadood arrintan ayaa looga leeyahay in maadaama la joojiyay salaadaha lagu tukado masaajidda magaaladaasi cudurka covid-19 awgii ay muslimiinta la socdaan xilliyada salaadaha waa salaada gaar ahaan afurka iyo suxuurta Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daar al-Hijra ee magaalada Minneapolis oo loo ogolaaday aadaanka qadka telefoonka ayuu igu waramay bismillaah galbeedka dadku markay joogaan aadaanku dibadda uma baxo masaajidka gudihiisa kaliya dadka jooga ayaa codka aadaanka maqlaya marka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay in aadaankii uu dibadda u baxo oo dadka dariska ah iyo meelo xoogaa ka fogba laga maqli kara aadaanka sida inta badan aan ku naqaano wadamada muslimiinta marka masaajidka aad imaamka ka tahay maxaa lagu doortay markii hore annaga ayaa codsanay oo waxaa iska kaashaday annaga maamulka masaajidka iyo anigoo imaamkii ah iyo hay-ad la yidhaahdo care oo u dooda dadka muslimiinta ah xuquuqdooda oo mas-uul ka yahay gobolka Minnesota markaan joogno nin la yidhaahdo Jilaan Xuseen baa iska kaashaday annagaa dalbanay taas marka waa qayb oo dalabkanagii bay ka soo jawaabeen marka dalabka ka soko ma jiraan wax kale oo aad ku qanciseen madaxda magaalada oo ay arrinkan idinka ogolaadeen waxa weeye dalabkii iyo codsigii markaan geynay masaajidka iyo meesha uu ku yaalaan ay tahay meel muhiim ah oo dadku baahi badan u qabaan dalabkii bay ka soo jawaabeen oo qiimeeyeen waxyaabaha ay ku qiimeeyeen marka waxaa ka mid ah aan ku qancinay marxalad adag baa hadda lagu jiraa dadku waxay ku jiraan wax la yiraahdo karantiil oo cid waliba gurigeedii bay ku xayiran tahay dadku masaajidda ma iman karaan oo ma la ogola in la yimaado masaajidiiba way xiran tahay bishii Ramadaan baa soo gashay
dadku markaa cibaadaadkoodii inay la socdaan bay doonayaan goormay afurayaan goormay suxuuranayaan awal hore marka badanaa masaajidda ayay kala socdeen hadda marka masaajiddii ma jirto oo ma shaqaynayso marka taa waxay kala soconayaan aadaanka taas waa qayb aan ku qancinno weeye qaybta labaad aan ku qancinno waxa weeye dadkii taqriiban bil bay hadda guryaha ku jiraan haddana bil iyo dheeraad baa laga yaabaa in guryaha lagu sii jiro markii aan la baxaynin laysu imanaynin laysu soconaynin dadkii waxaa laga yaabaa kawthara inay timaado walwal iyo naxdin iyo fikr u yimaado aadaanku marka waa qayb kamida daawo weeyaan rabno dadka inay sanjeer markay aadaankii maqlaan dadka markaa walwalkooda inuu yaraado taasuna waa qayb labaad aan ku qancina weeyaan qaybta saddexaad aan ku qancina waxa weeye bulshadu marxaladan adag inay dareento inay isu baahan tahay inaan la kala maarmin in muxuu ahaa isku mid la yahay taa waan kala hadalay marka arrintaas oo dhan bay qiimeeyeen oo uu qiimeeyey ninka xukuma magaalada ama oo la yidhahdo meeyarka ama duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry sheekho waxaa jira dad badan oo diidan soo galootiga oo si gaar ah nacayb ugu muujiya muslimiinta sidee ayay arrinkan ama tallaabadan u arkeen waa su'aal aad iyo aad in la isku weydiiyo u baahan weeye annaguna xaqiiqaha waan isweydiinay markii aan codsiga xaraynaynay islaamka iyo muslimiinta dad baan jira haddii marka dad nacab ama muxuu awalba nacayb uu ku jiray ay isku dayaan inay arrintan si khalada ay uga falceliyaan waxaan isku dayaynaa qaab xigmadi ku jirto qaab caqli ku jiro qaab wanaagsan oo muxuu ahaa dulqaad uu ku jiro inaan annaguna aan uga jawaabno insha allah qaab noocee ah ayaad filaysaan inay uga faa'iidaystaan muslimiinta xaafadaasi ee aadaanka la in ogolaada inaad baahisaan waxaan isleenahay kawthara inay uga faa'iidaystaan xilliga la afurayo dadku markii la aadaamo waxay garanayaan xilligii la afuraya inay tahay oo maalinka ay dhammaatay xilliga la suxuuranayo taqriiban ama suxuurta kadib xilliga la aadaamo oo xilligan waa xilliga cuntada la joojinayo markii cuntadii la joojinayo ayay garanayaan taana qayb labaad weeye qaybta kale in badan oo ka mida bacdama ay guryaha joogaan qaar badan oo ka midun dad waayeelahoo laga yaabo xataa technologiga ama qalabka warbaahinta iyo social mediaha iyo aysan aadba u aqoonin si loo isticmaalo aadaanka ay maqlaan wuxuu u fududaynayaa waa waqtiga duhurka waa casarka waa maqribka waa cishihii waa subaxii ayuu u fududaynayaa inay ogaadaan ay la socdaan qaybta kale waxay uga faa'iidaysanayaan oo kaleeto in iyagoo xataa guryaha ku jira laga warqabo oo cibaadadoodii iyo diintoodii aanu ilaalinayno loo ilaalinayo iyaduna waa qayb ka mid a oo ay siiso kalsooni iyo muxuu ahaa taana waa qayb kale weeyaan qayb saddexaad oo kale waxay uga faa'iidaysanayaan insha allahu tacaala marxaladda adag ee ay ku jiraan haddana mar walba marka la xusuusiyo aadaanka maqlaan inay connection iyo ku xidhnaan ilaahay subxaana wa tacaala ay sii kordhinayso iyaduna waa qayb kaleeto weeyaan inay walwalka iyo fikirka ay yarayso dadkaan muslimiinta ahayn aadaanka ay maqlayaan in aadaanka naftiisu ay ku xambaarto sababta loo aadaamaya waa maxay bal dadkan aadaamaya iyo dhaqankoodii diintoodii aan dib u raadiyo aan balbarto iyaduna inay tahay ayaa suuragala waa hagaag kaasina waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daar alhijra ee magaalada Minneapolis oo loo ogolaaday inuu baahiyo aadaanka ee salaada afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo iyo qadar 24 daqiiqo halkanina waa BBC ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 44 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda balse markan kooxaha mintidiinta islaamiga ah ee ka dagaalama daafaha caalamka ayaa inta badan qorta caruur yaryar oo u dagaalama kuwaas oo aan helin waxbarasho ama xirfad kale oo ay marka dambe ku maareeyaan noloshooda BBC-da ayaa booqatay xarun ku taal dalka Afghanistan oo lagu hayo in ka badan 150 canug kuwaas oo la sheegay in lagu qabtay dagaalada ka dhanka ah Taliban iyo ISIS halka qaarna ay dawladda isu soo dhiibeen warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo haya Qaalib Baaruud halkan waxaa dhaqan celin loogu sameeyaa caruur ka soo laabatay ururada xagjirka ah waxaana lagu hayaa caruur badan oo qaarkood ay ka tirsanaayeen ururada xagjirka ah ee Afghanistan ururka ayaa laayay kumanyaal shacab ah balse Maxamed Sakir ayaga ayaa u ahaa dadka uu ku dayanayo My job was to place explosives. My family didn't know. Shaqadaydu waxa ahayd inaan qaraxyada dhigo reerkayga kama aysan warhayn
waxaan u haystay in aan diintayda u shaqaynayay iyo in aan dilo dadka xunxun kama cabsan jirin walxaha qarxa waxaan ogaa inuu alle i badbaadinayo I knew God would look after me. My uncle lives in Taliban area. abtigay wuxuu u degan yahay goob ay maamulaan taalibaan markaan halkaasi tegey waxaan fiirsaday muuqaaladooda waxaan arkay iyagoo dad ka caawinaya taas ayaa igu kaliftay inaan ka mid noqdo That made me think about joining them. carruurta ayaa ka qayb qaatay dagaalada afghanistan ee 10 sano soconayay ayagoo qaarkood lagu qasbay inay khasab ku dagaalamaan maxamed iyo koox kale ayaa mar kale isku dayay inay baxsadaan My parents are dead. My brother-in-law took me to Jalalabad. waalidkay waa ay dhinteen seedigay ayaa ii kaxeeyey jalaalabad wuxuu ii sheegay in halkaasi aan ka akhrisan doono madraso isis ayuu ka tirsanaa waxay u dhaqmaan sida muslimiinta oo kale balse ma ahan waxay dilaan carruurta iyo dadka aan waxba galabsanin mar ayaan isku daynay inaan baxsanno balse isis ayaana soo qabatay oo xabsi ayaana la geliyey wayna garaaceen waxayna nagu yidhaahdeen ma waxaad doonaysaan inaad kaafiriinta ka mid noqotaan They beat us and said, "You want to join the infidels." When it was dark, we left. We walked all night through the hills. markuu mugdiga soo galay ayaan baxsannay habeenkii dhan ayaan buraha dul soconnay maalintii xigtay ayaan isa soo dhiibnay dabcan waan cabsanaynay balse haddii aan halkaasi joogi lahayn waan dhiman lahayn dowladda ayaan isku soo dhiibnay waxaan u haysannay inaan guryaheenna aadi doonno balse halkan ayayna keeneen But instead, they put us here. dagaalka halkaas ka socdaa waxa uu bilaabmay iyadoo aan carruurtani dhalan kuwo badan oo saakir la mida waxaa soo wajahay dhibaatooyin maskaxda ka gaadhay xaruntani waxay isku dayeysaa inay xagjirnimada ka masaxdo wiilashan casharro ayaa halkan lagu siiyaa iyada oo aan qaarkood weligood waxbarasho gelin carruurtan qaarkood waxay doonayaan inay mar kale ku laabtaan ururadii ay ka tirsanaayeen balse xitaa kuwa fakarkaa xagjirnimada ah weli qaba waxay ka shalleeyaan dagaalka dalkooda ka socda The Taliban just put ammunition in your hand and tell you to fight. taalibaanka waxa ay ku siinayaan hub waxayna ku odhanayaan dagaalan balse markii halkan la iga fasaxo waxbarashadeeda ayaan sii wadanayaa But when I am released from here, I want to keep studying. codkaasina waxaa u dambeeyey warbixintii qaali baaruud markana wararkii cayaaraha waxaa lagu soo waramayaa in laga yaabo in tartanka koobka Champions League iyo Europa League ay la ciyaaro bisha August kadib markii wadahadallo dheeri ah ee la yeeshay Arbacadii shalay ahayd kaas oo looga hadlayay xilli ciyaareedkan 2019 iyo 2020 xiriirka kubadda cagta ee FIFA ayaa talaadadii ururo gaaraya 55 ku wargelisay inay suuragal tahay in tartanada la qabto bilaha June, July iyo August. guud ahaan idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa dhegeystayaal tan iyo kulankeena xiga waxaan idin leenahay nabadgelyo.